mudana gudoomiye marka hore kusoo dhawow Sob News TV marka xigta waxaad ka warbixisaa wararkan baraha bulshada lagu baahiyay warbaahinta qaarna ay tabisay ah in laga jaray korontadii iyo biyihii go'doonna lagu geliyay. marka hore waa mahadsantihiin waxa la sheegay waxaas waxba kama jiraan cidna aniga go'doon ima gelin karta cidna muxuu ahaa isku maday karta waxaan joogaa xarunta dowlad goboleedka Jowhar muxuu ahaa Hirshabeelle waxaasna hadda waxaan ka maqlay TV-ga Kalsan muxuu ahaa maanta oo dalka Soomaaliya ay ka jirtay cudur safmareen oo la coronavirus intay ummadda wacyigelin lahaayeen muxuu ahaa ku soo caan baxay inay muxuu ahaa barabadaan siyaasadeed oo waxba ka jira ay fidiyaan ummadda marka Soomaaliyeed waxaan ugu digaa inaysan warbaahintaas Kalsan TV aysan ka qaadan muxuu ahaa warka ay sheegaysa maadaama ay been abuur ku soo caan baxeen ama ay ka shaqeeyaan been abuur anigana hawsheedu waa iska caadi oo hadda Jowhar dadka degan ama xildhibaanada ama shacabka degan ayaad weydiin kartaan ama TV-da kale meesha jooga cidna aniga ma xayiri karta hawsheedana cid ma hor istaagi karta marka arrinkaas ayaan rabaa inaan kuu sheego waa gartay laakiin ma jiraan in ciidamo aanan ilaaladaada qayb ka ahayn inay yimaadeen xaruntii aad deganayd adeer waxaan kuu sheegayaa warkaas waxba kama jiraan hal askari oo kamid ah muusan imaan ilaaladii baarlamaanka loogu talagalay iyo aniga staafkeydii iyo dhammaan ciidamo amisom jooga xarunta waa nabad wax dhibaato ah kama jiraan mana ka jiri doonaan dee alla idmo cid isku dayi kartaa hawl ma jirto hore baan kugu sheegay TV-gaas ayaa beentaas ka shaqeeyey marka wax muxuu ahay siyaadaho meesha ka jira haba yaraateen ma jiraan waa been abuur iyo barabagaan la rabo in Hirshabeelle muxuu ahay la sii hor keena ama dagaal beeleed lagu abuuro marka wax ka jira haba yaraateen ma jiraan waa gartay wararka qaarkood waxay sheegayaan in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo adigoo gudoomiyihii baarlamaanka ah khilaaf uu idin soo kala dhex galay kadib markii amar ay soo saareen oo ahaa in gabi ahaanba wax duulimaad ah aanay imaan karin deegaanada Hirshabeelle wararkaas maxaa ka jira adeer waxba kama jiraan baarlamaanka iyo xukuumadda iyo muxuu ahaa garsoorka waa saddex hay'adood madaxa oo muxuu ahaa kala duwan qolo walba shaqadeeda ay muxuu ahaa gaar u wadataa duulimaad aniga ii socda ama diyaarad aniga ii socota cidna igama horjoogsan karta aniga goordhow ayaan tagay magaalada Jowhar shaqaan u tagay safarna aniga soomaba ahayn oo Jowhar hadda joogaa waxaas marka waa been abuur waxay kamid tahay TV-ga Kalsan uu beeniyay macnaha oo ka shaqeynayo kamid tahay xaaladii aniga waa iska caadi cidna safar igama celin karto cidna ciidan ima dul keenin wax dhibaato hadda aniga haysana ma jiraan warar kale waxaa jira oo sheegaya in aad ku kala aragti duwan tihiin madaxda sare ee Hirshabeelle gaar ahaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo adigii gudoomiyaha baarlamaanka ah qabsoomidda doorashada golayaasha baarlamaanka Hirshabeelle iyo madaxdeedaba hadda waxaa lagu jiraa coronavirus iyo arrin xaalad degdeg ayaa lagu jiraa ma hadda doorasho waqti baa ka dhiman hadda waqtigeedii weli lama gaarin waxaa ku jirnaa la tacaaladii dadka muxuu ahaa iyo qaabka cudurka laga hortegi lahay waxa marka aan kusoo wacayn waxaa weeye warka hadda ay idaacadda TV Kalsan uu sheegay inaan beeniyo oo ka shaqeeyey wax aan laga shaqeyn karo aada u xun ummadda Soomaaliyeed mar labaad aan ugu digaa inay wararkiisa dhageystaan ama ay war ka qaataan marka waa gartay ma jirtaa in lagu diiday in warbaahinta ay ku timaado oo xaaladaha taagan ay kaa wareysato gaar ahaan warbaahinta ka howlgasha Jowhar adeer waxaasoo dhan waxba kama jiraan xaaladda waa iska caadi cid aniga muxuu ahaa ila hadashay ama cid muxuu ahaa joogsan karta ma jirtaan ku yidhaha hataa jirta xataa laakiin maba jirtaba waa been baan ku leeyahay miyaadan warkayga fahmayn waa been wax ka jira male cidna ima caqabadayn cidna ima dhibaataynin marka shaqadeydii caadiyan meesha u joogaa wax dhibaato ah oo aniga hadda aan la kulminina ma jirto wax cidna ima dhibaatayn karto oo aniga muxuu ahaay aan ka baqaaya ma jirto marka ma fahmi karaba warkaas waa kuu sheegay idaacaddaas ayaa beeniyay telefishinkaas ayaa keenay warkaas beenta waxba ka jirin waa gartay hadda ammaankaaga yaa xaqiijinaya
ammaankaydu waa caadi waa ku sheegay staafkeydii iyo ciidamadii baarlamaanka loogu talagalay iyo amisom ayaa joogta magaalada meeshaan doonaan ka mari karaa adeer cidna aniga meeshaan muxuu ammaankeeda uguma baahni anaa isku filan ugu dambeyntii guddoomiye annagoo kaaga mahad celinayna ma jirtaa in xubnaha sarsare ee hirshabelle aad ku kala aragti duwan tihiin geedi socodka siyaasadeed ee soomaaliya inaan ka hadlo hadda caawa taas ma raba mar kalean ka hadli doona hadda ala idin aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle sheekh cismaan barre oo qadka taleefanka ugu warramaya telefishinka som news aad baan kaaga mahad celinaynaa guddoomiye